awoodda kooxaha argixisada ayaa kor u kacay kadib markii qaar ka mid ah dalalka carabta ay ka dhaceen kacdoon shacbi ah waxaana hal mar warbaahinta caalamka qabsaday falalka naxdinta leh ee ka baxsan bani aadamnimada oo ay geysanayaan kooxahaasi gaar ahaan kooxda daacisha ee ka jirta dalalka Syria iyo Liibiya xeelerayaasha dunida muslimka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida fikirka xagjirnimada uu ugu dhaxfaafayo muslimiinta dhexdooda haddaba Shaafici Macalin Axmed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha islaamka ayaan weydiiyay goorta ay bilowdeen kooxaha mayalka adag ee islaamka dhexdiisa iyo waxa ay aaminsan yihiin waxa uuna ku jawaabay sida tan waxay soo bilowdeen xilli aad u horeeya waxaana ugu horeeyay ama ay soo argagixisana bilaab ama fikirka mutadarrifka bilaab waxa ay qolo lagu magacaabo khawaarij qoladaas soo baxay xilligii khilaafadii amiirul mu'miniin Ali ibn Abi Talib oo qolo waxay ahaayeen afkaar xag jir ah aaminsan oo munxarifiina afkaarta ay aaminsaneen waxa kamid ah dadka muslimiinta ah oo ugu horeeyaan Ali ibn Abi Talib oo markaas aqbalay heshiiskii asaga dhexmaray iyo saxaabada kale oo la dagaalameysay aqbalay in ay yihiin dad gaala ah oo fikirka takfiiriga meeshaasi ayuu ka soo bilowday oo ah xag jirka ah nimankaas oo asala kabacdi fikirkii wuxuu noqday uu tadawuray qaab kitaaba ah ayaa rag u soo bandhigeen ilaa uu soo gaaro qarnigii 12aad kala barkiisii dhulkan loo yaqaan Najdi uu soo gaaro oo rag ka soo baxay ay fikirkaasi ay u turjumeen ayaguna dhan tadbiiq ah ama ay soo bandhigeen oo ay fal ahaan u soo bandhigeen nimankaas oo asala kooxdaasna waxa hogaaminayay sheekh lagu magacaabo Maxamed Abdul Wahhab oo soo baxay qarnigii 12aad ee hijriga kala barkiisii ka soo baxay magaalada dhulka la yiraahdo Najdi ee dalka maanta loo yaqaan ka tirsan Sacuudi Carabiya marka fikirka xaggaas xilliga taariikhdaas uu leeyahay waa musalsalka ah oo xiriirka ayuu leeyahay wuuna qoran yahay waa fikir qoran kitaabo ku qoran kitaabaan lagu soo bandhigaa waana la darsaa madaarista wadamada muslimiinta qayb ka mid ah lagu dhigaa jiilal buuna soo saaraa waana fikir marka taariikhdaas leh waxay aaminsan yihiin fikirkaas hadda aan sheegnay oo ragaasi ay kitaabada ku qoreen oo ah dadka muslimiinta ayagu markaasi ay isla aaminsan yihiin dadka saxan kaliya inay yihiin oo fikirka islaamka ah saxiixa ah waxay tahay kaligood inay yihiin dadka muslimiinta ah ka soo harayna ay u qaybsamaan dad faasiqiin ah iyo kuwa gaala ah oo markaasi ula mucaamaladii islaamka ay dadka gaalada ay raadeen mucaamalo looga mucaamalay mid xataa ka duwan ay uga mucaamalaan oo dadkii ay iyagooda banaystaan maalkoodii banaystaan waxyaalo fara badan ay ku sameeyaan wax maanta aan arkayno oo qaraxyada ah fikirkaas oo asala oo kitaabadaas ku qoran qaar ka mid ah culimada islaamka ayaa rumaysan inay jiraan waxyaabo sababay inay abuurmaan kooxaha argixisada ay dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ah iyo dadka aan ahayn intaba Cabdisalaam Macalin Cabdilaahi oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo degan wadanka Masaarida ayaan weydiiyay asbaabaha keenay in fikirka xagjirnimada uu baaho siyaabaha ay u sameysmaan kooxahaasi waxaa lagu soo aroorin karaa sida tan koow horta midi waa mid la xiriirta mabaadi iyo aragtiyo xilli hore hirgashay oo ay tix raacayaan oo ay rabaan inay hirgeliyaan waa midda koowaad midda labaad oo keenta inay sameysmaan dalalka muslimiinta dhexdooda ka sameysmaan ayaa waxay tahay had iyo jeerna uu u soo noqnoqdo falalkaasi ay sameynayaan iyo samayskooduba waxa weeyaan dalalka muslimiinta ah madaxdooda gaar ahaan kuwa carbeed nidaamyada iyo maamulada iyo madaxda ka jirtaahi ma ahan kuwa ku yimaada rabitaanka dadka deed marka waxa timaada madax iyo dadkii isdiidan deed marka dhalinyarada aan semberi awoodin inay aragtidooda iyo waxa ay doonayaan inay qaab nabadgelyo ah ku soo gudbiyaan ay dadka ka dhaadhiciyaan waxa ay doonayaan ayaa waxay door bidaan inay si sahlan arintii iskugu dayaan inay uga takhalusaan oo ah in ay dil iyo dhac ay arintii ay ku faafiyaan midda labaadi waa taas tan saddexaad ay oo la oran karo ayadana way samayskooda way ka qayb qaadataa waxa weeyaan dalalka dawladaha waaweyn raba in ay dalalka aan awoodda lahayn in ay uga faa'iideystaan qaab siyaasadeed qaab dhaqaale oo isballaarinta wada waxay had iyo jeer ka qayb qaataan inay sameysmaan kooxahaasi ururadaasi argagixisada ah inay sameysmaan ayay ka qayb qaataan marka hore way fangareeyaan tababaro aad u heer sareeya ayay siiyaan deedna waxay yiraahdaan hadhow idinka ka takhalusi doonee bal horta sameeya si fadqalalo iyo dhibaato wadamadaani ay uga abuurmaan mase awoodaan inay dib u tirtiraan dhinaca kale
weerarada ay geystaan kooxaha argixisada ee dagaalka kula jira qaar ka mid ah dowladaha islaamka iyo reer galbeedka ayaa adeegsada xeelado ay ka mid yihiin inay isku qarxiyaan dadka taasoo ay ku adkaatay dowladaha qaar inay ka hortagaan arrinkaasi haddaba Axmed Cumar Xanafi oo falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyay goorta ay bilaabatay in kooxaha islaamiyiinta ay isku qarxiyaan dadka kooxahan hadda dagaalama waxa la oran karaa oo hubka qaaday wixii gumaystaha markii laga baxay oo dalalku ay xorriyado ay qaateen oo madax kale ay dalalkii la wareegeen xilliyada ayay bilowdeen oo qaab ku bilaabmay waxa ahayd masalan dawladahan carbeed oo kale sida Urdun iyo Masar iyo dalka Suuriya la yiraahdo waatay dagaal la galeen Yahuuda oo Israa'iil macnaha xilligu markuu 1967 dagaalkaas oo markaa lagu jabay oo tiro gaaraysa 15,000 ilaa 25,000 meelaha dawladaha carbeed saddexda ah ee kaga dhintay dagaalkaas 800 meelaha masaarida kaga dhinteen maadaama markan jab uu ka yimi xaq dawladihii carabta oo dagaalka xog ka keeni kar waayeen oo Yahuud oo Israa'iil macnaha barnaamijkooda meel ay saari kar waayeen go'aan waxay ku gaareen ururada islaamiga ah in markaa la helo kooxo inay dagaalamaan diyaar u ah oo dagaalada ay ka qayb galaan oo iyagu booski buuxiyaan oo ceebta ummadda u soo hoyeetay ummadda ka qaad aragti noocaas aamineen laakiin farsamo kale ayaa loo helay oo qolyaha si la isu dhaafiya waxa la sameeyay waxa la furay urur meeshii ahayd xagga Afghanistan in loo diro oo wixii 70aadkii ka dambeeyay dhamaadkiisa ilaa 80aadkii dagaalo 10 sano meelaha socday ee dadku loo jihayay marka oo xaggaas oo Mareykanka iyo Carabtuba ay daneynayeen marka ay Ruushiyaan ama dawladda Ruushka lagu jabiyo saadartay waayid ma wadaadadii groupkii xaq soo gal waxay ogaadeen in jihaadka iyo barnaamijka ka socday buu ahaa barnaamij manaha danaha Mareykanka laga shaqeynaa Israa'iil lagu badbaadinayo kadibna go'aan wax ku gaareen inay la dagaalamaan maamulada ka jira dawladaha carbeed oo yiraahdeen cadawga suke waa in la diraa intaan cadawga la dirin aragti noocaas kala ayay aamineen saas inay ku shaqeynayeen muddo dhalinyarada aaminaysa in isqarxintu ay diin tahay oo ay soo badanaysaa gaar ahaan dadka Soomaalida marka sidee ayaa loo yareen karaa in fikirkaas dhalinyarada laga dhaadhicinayo oo ay aaminayaan haday isqarxiyaan oo xitaa dad muslimiin ay laayaan inay diintu ay ka mid tahay janno ay galayaan fikirkaas oo aad u soo xoogeysanaya guud ahaan wadamada islaamka aragtidaas waxa lagula dagaalamay isqarxisku waa wax ka dhasha qofkan uu isku qarxinayo ama groupkan uu isku qarxinayo waxa uu ka aaminsan yahay marka waxa raba xagga fikirka iyo dadka inay muslimiin qofka laga dhadhacsiyo inay dadkan way gaaloobeen la leeyahay inay gaaloobeen loo cadayo markii qadiyada dhinaca laga daaweeyaa qaraxa xal loo heli karaa laakiin qaraxa kaliya hadii lagu mashquulo iyada aan la fiirin waxa buwaagta ku qoran kutubta ku qoran waxa weeye oo raggan waxay ictimaadaan kutub hore u soo jirtay oo Ibn Taymiyyah uu lahaa oo kale waxay ictimaadaan kutub Maxamed Abdul Wahhab oo kale waxay ictimaadaan kutubtii ama waxa weeye ku tiirsan kutubtii Sayyid Qutb oo qoray oo kale waxa jira kutub kale oo la qoray oo rag hadda nool ay qoreen ilaa su'aalaha kutubta ku qoran laga jawaabo oo xal loo helo oo waxa culimada muslimiinta ay u soo jeestaan lagama jawaabi karo waan isleeyahay lama lagu mashquuli karo arrimahan xal loo heli mayo baan leeyahay arrimahan isqarxinta ku saabsan si kastaba xeelleeriyaasha ka faalooda arrimaha kooxaha argixisada ayaa rumaysan dawladaha caalamka gaar ahaan dawladaha islaamka inay ka gaabiyaan la dagaalanka kooxaha argixisada ama inay dhinac mareen dhabaha saxda ah ee lagu ciribtiri karo haddaba Shaafici Macalin Axmed iyo Axmed Cumar Xanafi oo labaduba ah xeelleeriyaal ka faalooda kooxaha islaamiyiinta ayaan wax ka weydiiyay arrimahaasi wadamada muslimiinta madaxda nidaamyada ka jira ee dictatoriga arrimaha ay sameynayaan dadka dhalinyarada ah oo mutadayiniinta ku sameynayaan oo ah falalka ciqaabta ay ciqaabayaan xabsiyada ay ku ciqaabayaan ayaa waxay soo saaraysaa jiilal fara badan oo fikirkaas inta xanaaqa inay u turjumaan ayaa keenaysa marka fikirkaas marka looga hortagi karaa in asbaabahaasi laga takhaluso iyo oo waxa asbaabka laga takhaluso waxa kamid ah in madaxda dictatoriyiinta ay falalka ay sameeyaan inay meesha ka baxaan wadamada muslimiinta nidaamkooda horta isbedelo oo nidaamyo ku dhisan islaami ku dhisan oo dadka muslimiinta ay tixgeliya oo dictatoriyiin aan ahayn in horta wadamada muslimiinta nidaamyadoodii ay noqdaan oo nidaamkii u isbedelo waa sababka koowaad lagu tirtiri karo labaad waxa kamid ah in fikirkaasi laga joojiyo faafintiisa la joojiyo oo madaarista lagu dhigayo laga hortago fikir kale oo badiilo saxiix ah oo islaamka muslimiintu ay leeyihiin lagu bedelo waxa saasa looga takhalusi karaa waxaan oran karaa anigu dawladuhu
arrinta xal u heli karna xad laga laakiin dawladaha in fara badani iyaga dantooda waxay ku jirtaa inay kooxahaas abuuraanin oo ka qayb qaataanin waayo hadii rabaan kooxahan in xal loo helo masalan urura jiro oo waxay ogol yihiin in si nabada ay u noolaadaanin waxay ogol yihiin si nabada inay siyaasadda uga qayb galaanin ururada hadii aad layso oo la dagaalanto oo xirxirto oo xabsida u taxaabto xasuuqdo waxay helayaan gurubyada dagaalamaya ayaa suuq helaya marka hadaan siyaasadda noocaas wax laga bedelin oo aqli ka duwan aan la keenin waxaan isleeyahay barnaamijkaas waxa weeye dawladahani way ku fashilmayaan Hussein Sahnuni VOA Qahira